محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفعله في مماته. صل على محمد السلام عليك بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، الله يدن بركيو. waxaan leenahay mabruuk alfa mabruuk. galabta sida macallimiintu inoo sheegeen halkan innaguna aynu daawanaynay waxaa tartamayay oo tartan aqoonoodkii madrasada Dar es Salaam ee magaalada Garowe ka socday galabta ku tartamayay fasalka shanaad ee iskuulka iyo fasalka labaad. waxaa la yiri la kala dheeree orodna ma aha. fasalka labaad waa guuleystay, final buu u gudbay. waxaa sugayay fasalka saddexaad oo ku xiga oo isagoo awal final hore ugu baxay. insha Allah taala labadoodana waa ogaan doonaa. labada fasalba mabruuk baan leenahay insha Allah taala. Allah idin barakeeyo. wixii la soo bartay oo la idin gashay oo aqoon ahayd oo la idin dhigay ayaa soo bandhigayseen. waa dadaasheen insha Allah taala. meesha ka sii wada. waxaan rabaa dhowr arrimood inaan ku soo gabagabeeyo haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah taala. arrinta koowaad, tartankii inoo soo socday muddada badan inoo soo socday, hadda waxaynu joognaa finalkii baan joognaa. labadii fasal oo ugu dambeeyay ayaa isku soo haray oo fasalka saddexaad iyo fasalka labaad ah. xilliga la qabanayo waa dib baan ka soo sheegi doonaa insha Allah taala. taasi waa mid weeye. midda labaad waxa weeye maanta waa arbacada soo socota insha Allah taala oo aan filayo bishu inay 26 tahay. waxaan qaban doonaa kaalinta saddexaad oo tartanka. waxaana ku tartami doona fasalka afraadka iyo fasalka shanaadka oo galabta laga badiyay. labada fasal baa ku tartami doona. qof maxaan iraahdaayay fasalkii badiya ayaa kaalinta saddexaad insha Allah taala soo gali doona. iyaguna sidaas ha u ogaadaan.